بسم الله الرحمن الرحيم waxay la tahay muddo toddobaad oo markii labaad ee aan isu soo taaga halkan inaan ummadda kala hadlo aafada cudurka COVID-19 waxaan horta iska wareysanaynaa toddobadii cisho waxa isbedelay ee aanu kala maqnayn haddii hore aan wasaaradda ka hadlayay caafimaadka iyo maanta toddobada cisho waxa soo kordhay horta waxa hawl galay mashiinkii baarayay xanuunka iskaankii baa shaqeeyey wuxuu inoo sheegay war cusub oo xaqiiqo ah oo ah inuu cudurkii ku faafayo bulshadeena si xawli ah awal hore maynaan ogeyn qof xanuunsado aada u bukoodo mooyaane oo soo dhaca oo dabeetana candhuurta iyo dhiiggiisa arka mooyaane iyo intaynu dadka ka qaadna dheecaankooda in la diro oo 10 cisho la sugo mooyee maynaan haynin xaqiiqada ah siduu gudaheena uga fiday kolkaa mashiinku wuxuu sheegay intii la baaray imika labada cisho u dambeysay waxay gaadhay tirada 40 qof dadkii la baaray ee mashiinku baaray waxay noqdeen 40 qof baa soo baxay oo kala ah 30 raga 10 dumar ah waxa kale oo iyana soo baxday cudurkan waxaanu maqalaa dhalinyarada ma dilo da'da ma taabto da'da ma galo maya waxa soo baxday da'da waxa ku leeyahay in loo siman yahay da'da weyn iyo da'da yarba labadaba rag iyo dumar da'da imika ugu badan ee uu dilo waa 25 konton inta u dhaxaysa halkaana waxa muuqata dadkii xoog ahaa inuu saameynayo gobolada kolkii la baaray dhammaantood waa lagu wada arkay calaamada dhibaatada aan doonayay inaan inoo sharxo waxa weeye waxa hore loogu kala maraa dawladuhu sida ay dadkooda u baaraan dabeetana ay u kantaroolaan qofka xanuunka sida masalan waxa weeye qof baa la helay inuu xanuunka qabo waa in la raadiyo dadkii ula xidhiidhay oo dhan waxa laga yaabaa inay 50 qof gaaraan ugu yaraan masalan 5 qof buu la xidhiidhay mid soo kula kulmay iyo mid guriga kula kulmay waxaynu eegaynaa markaa inuu qof waliba 5 kale la sii kulmay waxaana ku xidhan tahay muddada uu qofkaasi aan la soo qabanin marka hadduu laba cisho qofkii hebel baa xanuunsaday maalin buu ku jiray magaalada 5 qof buu la kulmay 5tii qof maalin kale ayaan igana la soo qabanin iyaguna ma 5 kale la kulmeen maalinta kale ku daraana 5 kale 100 bisaa ku gaarayaan boqolaal marka waxay cudurka dadka gaadhay hadduu dadkii gaadhana waxa fara badanaysa markaa inta uu dilayo ilaa dadka isku wada ma aha xoog jirka isku wada celin kara isku wada duruuf ma sidaa darteed dadka ka baalkan ka adkaaday imika Afrika iyo geeska Afrika Djibouti baa tusaale wacana marka taynu doonayno inuu fahmno waxa weeye maanta xanuunka aynu iska baarno inagoo caafimaad qabana aynu check samayno marka la ogaado goor hore inaad xog qabin waad ka adagtahay muddo ma dasanaysa boqolkiiba waxa laga yaabaa 2-3 qof inay ka wada kacdanta kale laakiin haddii adoo sida oo isagoyn adada dadkii wada gaarsiiso oo kii da'da ahaa iyo kii taag daraa iyo kii dee wax qabay ama uu kugu raago dhibaatadaas u keenay waxyaalaha weli inagu jira waxa kamid ah in abiya ceebta oo la qarsado hebel koof buu qabaa wax weyn bariga oranti waa TB wax weyn AIDS war waa cudur yimid oo baraad ku dhaca marka waa inaynu dhammaanteen u heegno horta in la isbaaro ta kale qofkii og la baaray positive noqda waa inuu soo dhowro wax kamaya oo caruurtiisii walaalkii aabihii jaarkii macalinkiisii waa inaan fidmaynin saddex maadaama aynaan hayn mashiino badan oo wax baara magaalada ku dheeraan noo olin waxa waajiba si aynu taa uga baxsanay ilaa isma hubnay afarteen wada shaqeynaya war isma hayno maadaa sida qof walba suurtagal si haddaba taa loo galo af walba 3 qodob baa la isku waafaqsan kala fogaada afka xidha farxasha adduunka maanta isku midaysan wasa quraha lagu yaray kara fadiis saddexaasa inoogu muhiimsan in la yeelo cudurkani waa aafo haddii imika dagaal dhaco ama duufaan dhaco ama dab kaco qof waliba wuxuu iloobayaa dhaqasho
waad iloobisaa bakhaarkaagii waad iloobisaa xawaaladaadii waad iloobisaa iskuulkaagii waad iloobisaa xafiiskaagii qofku wuxuu ku cararayaa gabaad meeluu nafta kula eerto gabaad u diidaya waar dab baa inagu soo socdo kacadhi codba ka hulaacaya xaggee ka galaabaa taala daad baa waxba qaaday xaggee buuraha aanu koraaya nafta kula eertaabaa taala waa dagaal oo ciidan baa ina eriyanayo waa tan layna leeyahay xaggee nafta kula gabada horta kani intii oo dhan buu la nuuci waa cudur qarsoon oo aynaan arkayn oo aafaa oyna dilaya markaa nafta xaggeen kula eertaa waarseen uga badbaadnaa waa saddexdaasu kala fogaada afka xidha faraha maydha dawo kale male qof waliba marka uu ka cararaayo dagaal duufaan dab iyo wax lamid ah lex jeclo ma dareemo alla xoolo dukaanka ka soo qaata ma idhahdo alla carruurta iskuul ma laha ma idhahdo waan gaajoonayaa ma dareemo haraad ma dareemo wuxuu og yahay oo ku ducaysanayaa ilaahow maanta colaaddaa iga badbaadi ama dabkaa iga badbaadi ama duufaankaa iga badbaadi waayo wuxuu og yahay hadduu ilaahay ka badbaadiyo intaa inay dhaqashay dherigba u dambeeyaan oo dhaqan doono kana tibuu la midii maanta waxa ma jiraan waa iska shaqaysanaya waxa ma jiraan waxana wadaya waxa la og yahay inuu mid walba ka balaysan yahay markaa waa inaynu nafta u sheegnaa inuu la mid yahay aafooyinkaa kaloo kale oo ayna ku dhibin gaajada meheradaadii oo xidhantay carruurtaadii iskuul laga joojiyey weliba waxay noo dheero ilaahay mahadiya inaad hele in lagu leeyahay gurigaa ku nagow oo isku qari oo gurigii laga qaxinay oon cadu ku horiyanayn sidaa daraaddeed waxaynu ku soo koobaynaa hadalkeenna maanta in badan baa laga hadlay waxa inoo dana oo naftaada u dano qof walba oo u danata carruurtaada jeceshahay iyo waalidkaa iyo xaaskaaga inaad raacdo talada dhakhaatiirtu maalin walba inaad daba joogto dadku waa danley maalintii bay arsaaqa doontaan intuba jirta intaba inagoo fulinayna aynu basar ku daro basar afkee lo xidho taabashadii badnoo la joojiyo haddii wax la iibsanayo la kala yar fogaado haddii la shaqo tagaayo meesha la shaqo tagay aan la isku boqon la shireen la kala fogaado intaasoo caafimaadkeenu ku xidhay iyo in la ismaqlo waxa intaasoo raaca waxa qura oo maanta inagu waajiba dhammaanteen inaynu isxambaarano waxaan uga jeedaa inaynu iscaawino dhakhtarrada badankood bilaash bay ku shaqaynayaan xataa dhalinyarada ka shaqaysa ee neeras leh ee laboratory leh badankoodu voluntary bay ku shaqaynayaan haddana inay cudur qaadaan iyagaa ugu dhow kama baqaan dalkooda u adeegaan siday kuwaas naftooda u hurayaan sida ka ciidanka xadka joogaa naftiisa ugu horaya inaan xadka la soo gelin sida askariga habeenkii oo dhan wareegaya tuuga ay dagaalamayaan naftiisa ugu horayaan dowlad ku seexato qof walo muwaadina waxaa laga rabaa wixii uu hayo inuu wax ka bixiyo waxaa la haya aqoonta ugu badan qofkii aqoon leh aqoonta ku deeqo xoogaagaa ku xiga wax ku tar xoogaaga waa loo baahan yahay wax ku tar hadday nadaafad noqoto jilicsan ururintii hadday noqoto wax sheeg hadday noqoto hawl xoogaaga wax ka tar adduunkaaga wax ka tar awoodda aad leedahay ee xunkuna wax ka tar xanuunkaasii loo yaran lahaa taana waxaa leeyahay dhammaanteen intaas anagu waajiba dadkeenu aad uma dhegaystaan waanada weli halis uma arkaan daraad koob iyo toban baa la helay positive shalna koob iyo toban baa la helay xalayna 6 buu soo saaray waana tira yar tiradu baadhaa waa 80 waa 100 meelaha balka war haddii dadka dhan la baadhinta soo baxaysa oo intaas wada fidinaysa marka hor oo inagu fidayo marka waxaan ku soo koobaya ninkii la oran jiray Cabdilaahi Dhoodaan ee gabaaga ahaa ayaa waa gabaaga ka dadka waariyo bari uu ka yaabay dhaga adayga Soomaalida gabay aad u qiimo badan oo malaha falsafadu inuu dadka dhan ogol yahay ayaa araartiisa ku jirtaa gabayga la dhugasho oo aad u xubad badan marka wuxuu yiri runtii loo dhakaabiyo kuwan dhaabada u sheegay runtii loo dhakaabiyo kuwan dhaabada dhakaabid iyo dhaabadu israaciy yaani wax kasto wax lagu rumaysto dhaar cilmi aqoon sharaxaad faahfaahin tusid runtii loo dhakaabiyo kuwan dhaabada u sheegay yaani waa hadal maxaa la yiraahdaa xaqiiqada formulada marka la dejiyo waxa la waa xaqiiqa 2 + 2 waa 4 waa scientific marka wuxuu ku leeyahay runtii loo dhakaabiyo kuwan dhaabada u sheegay ninka dhakhtarka adduunka ugu xariifsan ragga ugu xariifsan PhD miran baa halka jooga cudurada faafa
si walba u sharxeen adduunka hore baa isku raacay maxaa ka macna ninka odhan iska dhaafaya mimir qaba markaa wuxuu yidhi runtii loo dhakaabiyo kuwaan dhaamada u sheegay in dharaariyo habeen qayladan kor u dhawaaqayay waryaaraay bal dhakhtartan eeg waxa qaylo ka baxaysa balwaanada eeg aroorba wasaaraddu hadlaysa dharaariyo habeen kuwaan kor u dhawaaqayay waxaan kor u dhawaaqayay warkada ayaa lahaa inta dhinac maraysa inta dhinac maraysa la iska dhaafo waxaas aad dhegeysanay waa kuwaan galasho dheereen inta maanta waxaan leeyahay war waxaa soo waana ah iyo intaa joogta inta dhinac maraysa le maya ee isdiisinaysa ma garasho dheera qofkan garasho dheerana jarbu ka dhacaya dadkana jarbu ka ridaya yaan la maqlay qofku doonaha saddexdaa shay ninkii diidan kala fogaada faraxasha afka xidho haddaad wax dareento meesha kaalay qofkii positive noqow intii ada xidhay sheeg qofkii la xidhiidhay qofkii la positive noqow kaalay adigu iskeen si aad dadkan wadgeyso ceeb maaha wuxuu dilaabo tiray marka dadka loo eego laakiin muxuu curyaanaya ummaddii o dhan buu wasiifinaya marka waxaan leeyahay maanta waxaan ugu soo noqday oon daatadana u sheegayaa waa in la kala fogaadaa dadka culimadii maanta waxay shirayaan guddidii bal xujada ay leeyihiin dadkii waan ugu haynaa taraawiixdii masaajidka iyadoo xanuunka saa u faafayo iyo dadka ka dhegeysanaya masaaniska aan rumaysnayn ma waxaan dhabteeda suaanay ogolayn ma dadkay xanuunka la doonayaan ma caqli kalaa maxaa dhacay waa su-aal kaloo taagan mar labaad baan ku celinaya dhalinyarada aqoonta leh waa inay hawshan ka qayb galaan way cadgelinta qodob kale jira shalay dhacay qalada tallaabo sharciya laga qaadaya waxa weeye dugsiyadii gaarka loo leeyahay qaar ka mid ah iyagoon wasaaraddii u ogolaan iyadoo wasaaradda imtixaan ha la galo iminka ay taagantay la geli maayo dadka la isu keeni maayo ayay carruurtii isugu yeedheen iskuuladii oo imtixaan baa gelaysa carruurta ma waxbay barayeen oo aqoon bay doon mise waleynayeen dadka miyay aafeynayeen caqliyaddaasi maxay tahay waa macallimiintii brifetka ee la filayay inay dadka aqoonta leh iyo wanaagga iyo nabadgelyada iyo waanada ka qayb qaataan maxaa ina eryaya haddii la caafimaad soo imtixaan la geli maayo soo arrin la xallin kara maaha maxaa 80 arday meel isugu keen dhakhtarradii ma ogola may weydiin wasaaradda waxbarashada ma weydiin gobolkii ma weydiin caqliyadaasi maxaan u qaadanay ardayda meel la isuguma keenayo dhakhtarrada fasaxa mooyaane dadka meel laguma ururinayo dhakhtarrada fasaxa mooyaane qofkii saa sameeyana wuxuu la mid yahay kaa qaadkii la joojiyey keeladoo kale ee sharciga jabiyey qofkii sharciga jabiyey talaaba laga qaaday mar labaad waxaan leeyahay dhakhtarrada hala maqlo danteennaa ku jirte wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu